والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan noo soo socday waxyaalihii fadaaisha ah ee quraanka ku saabsanaa bacdama aan soo qaadnay muxaadaradii ugu horeysay in quraanka laftigiisa bisha Ramadaan lagu akhriyo inay yaani sunno gaar ah ay leedahay oo si gaar ah la rabo in loogu dadaalo ayaa markaa waxaan guud ahaan ka hadlaynay fadiilada yaani quraanka laftigiisa ku sugan iyo cidda quraanka laftigeeda akhrinaysa quraanka waxyaalaha fadaaishiisa waxa kamid ah hadda xadiis hore marka aan soo marno qadiyo kale laftigiisa ka hadlayana حديث كلو عن صومر مي أو قضية كله لفتجي سو يعني كهد لهاي أساق لفتجي سنة يعني محوها وانقصوا قادناي أساق لفتجي سنة وانقصوا قادناي شفاعة دي حديث كهر وانقصوا قادناي وقضية كله لفتجي ده يحيى لك لا مركا كهد لهاي وحديث كاسو أوصو شيء هي إنه يعني محوها وشفاعي دونه قفك يعني قارئ آية قرآن كأخريه إلهي إنه وقشفاعة أقبل دونه طبعا أسجى هالكيسة كامل فضيلة لمرك يعني قارئ آية كامل هاي مرك هذا أحاديثنا لفتي ولا هذا صوص عصا قال كود وحي بشيء هي القرآن كلفتي يسوع إن أصوغنا وقشفاعة هيو متك يعني قارئ قرآن كونه وقشفاعة هيو وإلهي وقل لي نقول هيو وحيالها مرك أولا صومرنا وها كامل نبي عليه الصلاة والسلام حديث كويري إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن قرآن كان وحوي وإلهي وليمدي سوي قفك يعني إلهي عصومات دي سدح قرانا قفكاسي يعني هو آمن واك مركا أمانة القرآن حتى لهنهي شفاعة اللفتي يدي قيامة وقفك أخرينها هي وشفاعة هي كامل مسلم وحوري أبي أمامة الباهي وحوري صحابي رضي الله عنه قال إنه يرى أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي وحن مغليبو يري إلهي رسولك سيورنا هي قرآن كأخرية قرآنكم مالنت قيامه وإيمانه هي أسقوا شفيعة هي أصحابتي معنى ذاتك قرآن كأخرين هي قرآن يعني الله صاحبي صاحبك وحا الله عبرها معناه هو قلوينك قرآنك يعني قلدي سلازمي sida yani qofka uu la saaxiibayo uu laazimo kale kuwaas marka maalinta qiyaamo uu shafiicay waxa kale oo marka xadiis ku soo arooray imaam Ahmad iyo Dabarani iyo xaakimku ay warinayaan oo xaakimku yani uu ku sheegay xadiiskaasi inuu yahay sahihun ala shardi muslim mid yani sahiha oo muslim shardigiisa sahih ku ah oo xadiiskan uu yahay xadiis yani laga wariyay rijaashi muslim xadiis yani uu ka warin jiray xadiiskaas marka wuxuu tilmaamayaa soomka iyo quraanku labaduba qofka inay u shafiicayaan xadiiskaas marka waxay ka wariyeen ragga muhaddisiinta ay saxaabigii la oran jiray Abdullah ibn Umar ayay waxay ka wariyeen radiyallahu anhuma anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah ilaahi rasuulkiisu inuu yiri soomka iyo quraanku adoonka way u shafiicayaan maalinta qiyaamah marka shafaaca sideeda maxaa la yiraahdaa shafaaca waxa la yiraahdaa talabul khayr min al-ghayr lil-ghayr macnaha wax wanaagsan oo la dalba ayaa la yiraahdaa ee la raadiyo oo cid kale loo raadiyo cid kalena looga raadiyo marka shafaaca macnaheedu af Soomaali ahaan markii la eego waa waxa yaani aanu naqaan geliinka ama ergada la yiraahdo marka adoonka maalinta qiyaame geliin bay u noqonayaan oo ilaahay bay geliin iyo erga ugu noqonayaan yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa فشفعني فيه صوم كله أورانهايا ربي وأنو قفكي صائم كاوحان أديني ونادي إيا شهودي سئلو قتايان أديني فشفعني فيه إلهو إيغا شفاعة إلهو قلين كيغا أساقا كسافسا إلهو أقبل إرقين تيدي ويقول القرآن قرآن كي وحو أساقون أورانهايا منعته النوم بالليل فشفعني فيه إلهو وحان أديني هبينكي إنو السيادو وقلدي هبينكي وأخرينهايا أما سلادوه كتهجدهايا وكو أخرينهايا فشفعني فيه إله يعني إيجا قلين بو مركا ورناي قلين كيغا أصلا كسابسن إله أقبل قال النبي مركا وحيد فيشفعاني لبدو ديبا يعني قلين كودي والله أقبل مركا هذا لبدو دو مركا هذا يعني صوم في القرآن كهدين لإيجا ومعنى لكن وحوي واحد جسد لأوكالي أيو إلهي كدقا هيا أو مركا هذا هيا وهذا كما النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كسوا قادنا هي حديث كالقرآن كي
ayadoo suuratulbaqara iyo aalu cimraan ay horkacahayaan oo xadiidka muslim iyo tirmidi ay ka wariyeen nawaas ibnu samcaan ay ka wariyeen ayaa xadiidkaasi wuxuu ahaa nawaas inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaqulu yu'taa yawma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlihi aladiina kanuu yacmaluuna bihi fi dunya taqadamuhu suuratu lbaqarati wa aali cimraan tuxaajaani can saaxibihima waxaan maqlay buu ilaahay rasuulkiisii oo odhanahaya maalinta qiyaame waxaa la keenahayaa qur-aanka iyo ahalkiisa ku camalfalahaya adduunyada ayaa la keenahaya iyadoo ay u horeyso suuratulbaqara iyo aalu cimraan waa labada suuradood ee qur-aanka ugu koreeya tuxaaja ayaga usoo hormarahaya qur-aankii oo dhan ayaana marka isi soo dabagelahaya waxaa laga dhigahayaa wax jasad leh maxaa yeelay qiyaamo waxaa dhicahaya wax la yidhaahdo baabu tajsiimi lmacaani waxyaalaha macnaha ah in laga dhigo wax jismi leh waatan yacni geerida laga dhigahayo wan oo kale oo qolooyinkii ahlu jannada ahaa iyo kuwii ahlu naarka aha dhexdooda inta lagu gowraco marka la gowraco waa la weydiinhayaa mid walba waxaa la odhanhayaa waxa kani wuxuu yahay mataqaani waa geeridii bay leeyihin waa wax qalbigooda ku beeranoo wixii geeridaha awal ay soo mareen way dareemahayaan waxa kan hadda yacni kafshiga laga dhigo oo wanka laga dhigay iyadii inuu yahay marka inta la gowraco waata la odhanayo qolo walba meesha aad ku jiraan baad ku waareysaa wax geeri la yidhahdaa ma jira marka waxaa la yidhaha tajsiimulmacaani buu jiraa marka hadde ilaahay wax walba waa awoodaa wallahu calaa kulli shayin qadiir markay qur-aankaasaa imaanhaya iyadoo ay usoo horeynayso soo horkacayso suuratulbaqara iyo suuratu aalu cimraan tuxaajaani can saaxibihima ayagoo yacni ka doodahaya labadaas suuradood saaxibkooda iyo qur-aankii kaleba ciddii yacni akrinaysay ayagoo markaa yacni u doodahaya si ay markaa ilaahay cadaabkiisa uga badbaadiyaan haddii qofkaasi uu ahaa qur-aanka midkii ku camalfalaya camalkiisa aan ka teginin ibnu xibbaan iyo bayhaqi waxay wariyeen ibnu xibbaanna wuxuu ku warinahayaa saxiixiisa bayhaqina kitaabka shucabulimaan la yidhaahdo jaabir binu cabdillahi waxay ka wariyeen radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alqur'aanu shaaficun mushafacun wamaaxilun musadaqun man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna waman jacalahu khalfahu saaqahu ila annaar ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi sida jaabir binu cabdillahi nabiga uu ka wariyey waxaa rasuulku uu yidhi alqur'aanu shaaficun mushafacun qur-aanku waxa weeye waa midkii qofka yacni ilaahay ugu galliimahaya oo galliinkiisa iyo ergadiisa la aqbalahayo wamaaxilun musadaqun qur-aanku waa midkii diradiraynahaya oo rabbi ku diradiraynahaya ee markaa yacni qofka hakranahaya musadaqun ee loo rumaynayo maaxilka marka qofka waxa diradirayahay ilaahayna waa kugu dirhayaa waa haddii aadan ku camalfalin qur-aanka aad dayacday waa kan marka siduu labada tilmaamood u yahay man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna qofkii qur-aanka yacni yeela isaga hortiisa ee qur-aanka ku dayda qofka dembi waa ka dhici karaa toobadkeen waa laga rabaa laakiin inuu xuduuddii qur-aanka ilaaliyo in badan ku dadaalaya qofka qur-aanka hortiisa yeela qaadahu ila aljannati jannadii buu hogaaminaya waman jacalahu khalfahu qofkii qur-aanka gadaashiisa yeela xagguuba u tuurayba oo qur-aankii waxa weeye maba ku dhaqmahaye awaamirtiisi iyo nawaahidiisi waaba iska xoorayba saaqahu ila annaari dhanka naarta ayuu ukaxaynaya u wadaayay marka meesha hore waxaa laga cabiray oo kale qofkii qur-aanka iska hormariya qur-aanku yacni inuu hogaaminayo weliba xadiidkan mucaasiriinta qaarkood inuu saxiixahay bay ku sheegaan dadkan dambe oo hadda wax tasxiixinahay marka qofka qur-aanka iska hormariya waa qofka yacni qur-aankii ka dhigta midkii yacni uu ku dayanahayo qur-aanka ka dhigta oo qur-aankiibuu ku dayanayo kaa markii laga hadlayo waxaa la yidhi qur-aanku jannadu u hogaaminayo macnaha inuu horkacahayo macnaha waxa weye jannadiibuu kusii dhaweynhayaayo waa cizaazin iyo karaamayn maxaa yeele qofka la sharfahayo madaxa ah markuu meel u socdo oo kale weliba lagu sharfahayo waa laga sii hormara qur-aankii baa kasii hormaray midkan qur-aanka marka gadaashiisa ku xorayna isaga maxaa la yidhi naarta u kaxaynaya qur-aankii marka waxaa laga dhiga oo kale iyo ciidamada yacni dadka dambiilayaasha gadaal kasoo wada oo kale oo gadaal ka karbaasha ee markaa u kaxaynaya sijnigii iyo xabsigii lagu ridi lahaa oo kale naartii buu kaxaynaya meeshaas marka waxaa laga fahmaya qur-aanka haddii qofka markuu anfacahayo inuu qur-aanku qofka camalkiisa uusan xoorin marka inay tahay marka sidaa daraaddeed dabaraani jaabir wuxuu ka wariyey jaabir inuu yidhi ilahay rasuulkiisu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam abshiruu bishaaraysta fa ina hada alqur'aana darafuhu biyadi illahi wa darafuhu biaydiikum fatamasakuu bihi fa inakum lan tahlikuu walan tadiluu bacdahu abada nabigu wuxuu yihi bishaaraystuu yihi farxuu yihi qur-aankaani docdiisu xarig oo kale ayaa qur-aanka yani nabigu ka cabirahaya sababtoa qur-aanka laftigiisa ilahay markuu lahaa
واعتصموا بحبل الله إلهي حرقي سقف صدق كلي حبل قوح الغفص إلى القرآن كذبتي سايا كاملة أما النبي قال مركو القرآن كان له يوكو شيء حديث حبل الله المتين وإلهي حرقي أرق ويوا marka quraanki waa xarig oo kale baadama ilaahay xaqiisa dhanka samada uu looga yimid marka wuxuu leeyahay nabigu xarigaas do ilaahay yadiisa ayay ku sugantay waa dhanka xagga ilaahay ila wajahadu looga yimid way samada ayaa marka laga keeno ila waxa weeye la maxfuud baa laga soo guuriyo beedkii beetul izza samaa dunya la keenay doona adinka gacantiini ayuu ku sugan yahay oo dhulka la idin keeno adinka hadda dhinaca haysta fatamassaku bihi quraanka marka qabsada ku dhaga fa innakum adinku lan tahliku ما هلاك سنيسان ولن تضلوا بعده قرآن كجلاك سألوا ما يسان أبدا ولي حصر بسري مركز سيدة إمام النووي وكسو قوليو تبيان كيسا وحول لي مركو أصو كورمهي بعد كاهرو يعني سلف كامركي وكورمهي سيدة قرآن يعني أي كي لجرين أيا وحا حصر بسري قال قولي أنه قال إنو يري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار وحيد ددكي أدينك إذن كوريه قرآنك يعني وحي وأركايين دنبال إلهي حقي سوغي يمد بي وأركايين هبينكي ويفيرين جيرين إلا قرادة هبينكي آد بيقود دالي جيرين مالنتينا مركا وافولين جيرين هبينكي قرآنك أسمركا وآخرين هايو معنيسي تدبرها يا أوامرت إلهي وحل إسكدونا مالنتينا وحاوي عملكي ويفولين جيرين وحي قرآنكو يعني وأمرها مركا دنبال إلهي حقي سوغي يمد habeenkii bay marka fiirfiirin jireen habeenkaas sida gaarka inay gaar waxay u siin jireen illa qofku quraanka habeenkii markuu akhrinayo qalbigiisa si toos ah ayuu ugu dhacay hayl waqtiga habeenkii ilaahay markii aayadu kaga waramay waa tuulaha inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wita'an wa aqwamu qila ilaahay wuxuu habeenka saacadiisu waa midii ku daran waafaqida qalbiga la waafaqo ayada ayaa hadal ahaana ku cadaan badan wixii habeenkii aad oranayso hadaad quraan akhrinayso ama adkaar aad akhrinayso wixii habeenkii la yiraahdaa laabtay ku dhacayaano ilaa habeenku shuqligan maalintu ay leedahay oo qofku uusan waxba maqlayn oo kale iyo oo buuqa iyo dadka hadalkiisa iyo jawiga laftigiisa kuleelkiisa waxa soo habeenkii marka waa uu ka maraya marka habeenkii waxa weeye waxa la yiraahdaa waa wax qalbiga waafaqaya waxa lagu dhawaaqana waa wax cad oo marka qofku uu maqlayo laabtiisa si toos ah ugu dhacay marka habeenkii bay fiirfiirin jireen la quraanka tadabburkaas loo soo dejiyo هذا هذا كلام سوق عن واتيله ولا قرآن كان سود الجنة وقرآن لا بركة محن سود الجنة اللي يدبروا آيات مركب مالك يلو يفولين جرين قرآن كمركب واحد دون هي قفك يعني أنا أقول من قرآن كينو برصو بحسب استطاعت سيد هذا هو أول كرو هذا آيات برنكرو هذا الله آيات مالك برنكر أنت أو برنكرو هاي القرآن كبرشديسة فضل وين آيات السوان حديث عثمان بن عفان يعني صومر من البخاري أصحاب السنة كأيورين هي وأتي النبي عليه الصلاة والسلام وكيري خيركم من تعلم القرآن وعلمه متك أذنك إذن خير كبدا وحويه كان قرآن كبر تدت كان بره مسلم يا أبو داود وحيوريه عقبة ابن عامر صحابي اللورنجر رضي الله عنه والله كان هذا النور قال صحابي قاسينه يري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة إلهي رسول جيسي أيام نقص بحي بويري أنقو كسوغن بويري بالبلالة شاهد كالنبي آخر كيسا وحا كويا لي ميل اسمها يا مركا يعني بالبلاء أو دارد مساجد يعني أو قدار ماشا مركا وحا أسكومي جري بس كمسلمين تاكو يعني فقير كا أي أسكومي جرو أيوغو قولي إيا مالي يحاسب من الأهوين تدكا شقدو مركا وحا يهي وأكو إلهي آيد وقور رمهيو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلهي أولا فقراء أكو إلهي جدك سألوا حبس لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم إلهي أولا كواس marka anagoo sufada ku sugan baa nabigu nagu soo bax marka waxay yeeli jireen adii jihaad u jireen jihaadkii aadi jireen marka la joogana quraanka ay baran jireen iyo cilmiga ay faqala marka nabigu wuxuu yiri ayyukum yuhibbu an yaghduwa kull yawmin ila buthan aw al-aqiq fayati minhu binaqatayn kawmawayn fi ghayri ithmin wala qat'i rahim nabigu wuxuu yiri midkeenne baa jecel baa nabigu yiri inuu maalin walba jarmaado oo meesha budhaan la yiraahdo ama aqiiq marka budhaanka iyo aqiiqu ma dheera budhaanku waxa weeye waa meel ku taala Madiina duleedkeedii aqiiquna waxa weeye waadiyaasha magaalada Madiina ayuu kamid yahay
marka meelahaas qofkeebaa jecel inuu subax walba u jarbaado fayaatiya minhu binaaqatayni kawmaa weyn ee markaa uu kala yimaado laba hal oo kurskooda uu weyahay waa geela yani kursyada waaweyn oo masalan kuwa ameerika la yidhaahdo oo kale waayahay fi gayri ithmin walaa qadci raxim ee markaa uu kula yimaado dembi la-aan iyo qaraabo goyn la-aan ayadoo geelaas yani uusan kusoo helin dembi iyo qaraabadii uu gooyo macnaha inuu cid kasoo dhaco oo kale ama cid ku dilay ama qaraabadii kasoo boobay iyo wax kale midna faqulnaa yaa rasuula allahi kullunaa nuxibu dalika markaa waxaan idhi ilaahay rasuulkiisiyo annagoo dhan arrintaa waa jecelnaha hade bini aadamka maogtaha waxaa lagu aafeeyey ahlu khayr kastaba ha ahaadee maalka waa la jeceliyo ilahay qur-aanka waatuu ku lahaa wainahu lixubi lkhayri la shadiid bini aadamku maalka jeclaantiisa waa ku daran yahay ilahay ula khayrka markaa laga hadlahay maalku ah qaala falaa an yaqduwa nebigu warkaanu u dan lahaa qaala nebigu wuxuu yidhi falaa an yaqduwa axadukum kula yawmin ila lmasjidi fayatacallama aayatayni min kitaabi illahi khayrun lahu min naaqatayni wa halaathun khayrun lahu min halaatin wa arbacun khayrun lahu min arbacin wa min acdaadihina min alibil nebigu wuxuu yidhi mid adinka idinka mid adinka midkiin inuu maalin walba jarmaado oo masaajidka u jarmaado oo markaa uu barto laba aayadood oo ilaahay kitaabkiisa ka mid ah ayaa waxay uga khayr badan tahay laba hal oo uu soo helo markuu jarmaado saddex aayadood uu barto ayaa saddex aayadood uga khayr badan afar aayadood uu barto saddex aayadood uu barto ayaa saddex halaad uga khayr badan afar aayadood uu barto ayaa afar halaad uga khayr badan iyo wa min acdaadihina min alibili tiradooda oo geela kamid a macnaha waxaa looga jeedaa wa akharu min arbacin afar wax ka badanna khayrun min acdaadihina min alibili tiradooda oo geel ah amhaashooda oo geel ah way uga khayr badan tahay markaa nabigu sidaa leeyahay waxa weeye wuxuu macnaha hadalkaa uga jeedaa ee ku tusaaleynaya qofku hadduu ilaahay aayaadkiisa barta hal aayad ba allah ka dhige ajarka yani uu ka helayo adduunyoo dhan lama simi kara adduunyoo dhan waa ka weynan badan yahay hay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku leeyahay makaanu sawti axadikum fi ljanna khayrun min addunya wamaa fiiha midkiin jeedalkiisi inta dhulka jannada oo kalaya jeedalkaasi uu ka qariya waxay haddii saa loo dhigo waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxa ku sugan waa intii jeedal le intaa intaa yani waxa weye carafteeda udugeeda iyo nabaadka kasoo baxaya iyo barwaaqaday xambaarsan tahay marka hal aayada ajarka laga helaya adduunya oo dhan buu ka khayr badan yahay ee nabigu geelaanoo marka labay ka khayr badan tahay afar wuxuu uga jeedaa carabtu yani geela aad bay u dhaqan jireen oo geela aad bay u weynaysan jireen marka macnaha wuxuu leey waxa iyaga agtooda ku weynan ka badan adinkoo aayaadka ilaahay barta waa ka khayr badan yihiin ee maan waxa la isu qiyaasi kara ma aha muslim iyo ibnu maajah abu hurayre waxay ka wariyeen radia allahu canhu qaala abu hurayra inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yihi ayuxibu axadukum idaa rajaca ilaa ahlihi an yajida fiihi halaatha khalifaatin cidaamin simaanin wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi midkiin ma jecel yahay abu hurayra nabiga ka warinahay midkiin ma jecel yahay hadduu xaaskiisa iyo reerkiisa uu ku noqdo inuu yani ahalkiisa ka helo iyagooda gurigiisa ay u joogaan saddex halaad oo riman oo waaweyn oo cayilan qulnaa nacam waan jecel lahaa nabiga qaala fa halaathu aayaatin yaqra'u bihina axadukum fi salaatihi khayrun lahu min halaati khalifaatin cidaamin simaanin nabigu wuxuu yihi saddex aayadood oo midkiin uu akrinahayo salaadiisa ku dhex akrinahayo ayaa uga khayr badan saddex halaad oo riman oo waaweyn oo cayilan ayalahade kan hade thawaab weynan badan oo ukhrawi ayaa ku jira kaasoo wax kastaba hale kaale waa waxaan adduunyaa wey tirmidi wuxuu abi hurayre ka wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi bacatha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bacthan wahum duu cadadin ilaahay rasuulkiisu ciidan buu diray ciidankaasina waxay ahaayeen ciidan yani tira leh bay ahaayeen fastaqra'ahum nebigu marka yani wuu ka akrin dalbo macnaha nebigu markaa wuxuu weydiiyey inay qur-aan ka akriyaan bal nin walba waxa uu yaqaano faqara'a kullu rajulin minhum maa macahu min alqur'aan mid kastoo ayaa kamidi wuxuu akriyay wixii asaga yani waxa weye micigiisa ahaado qur-aanka wixii yani markaa isagu yaqaano qur-aan u akri faataa calaa rajulin min axdathihim sinan faqaala maa macaka ya fulan nebigu marka siduu raggii qur-aanka ugu imtixaamay u weydiinayay markii dambe nebigu wuxuu ku yimid
nin kamida kuwooda ugu da'da yar markaasuu wuxuu yidhi hebelow adiga micigaaga maxaa ahaaday adigu maxaad haysaa hebelow qaala wuxuu yidhi macii kada wa kada anigu waxaan hayaa buu yidhi intaa iyo intaa iyo wa suuratu lbaqara iyo suuradda baqaro intaa iyo intaasoo suurad iyo suuradda albaqara waan aqaana qaala markaa nebigu wuxuu yidhi amacaka suuratu lbaqara ma suuratu lbaqara miyaa kula jida qaala wuxuu yidhi nacam qaala nebigu wuxuu idhab fa anta amiiruhum tag ciidanka allah madaxda ah nebigu yidhi ciidankii madaxda looga dhigay faqaala rajulu min ashraafi nin baa marka inta masayray warkaan yidhi mid kuwooda sharaf kale kamid ah wuxuu yidhi wallahi ilaah baan ku dhaartay yaa rasuulallahi ilaahay rasuulkiisiiyow maa manacanii an atacallama suurata albaqara iima diidin suuratulbaqara inaan barto shay iima diidin ilaa khashyata alla aquuma bihaa inaanan uqumin ka baqideedii maahan ilaa khashyata meelaha qaarkood sidaa way xarakeeyaan haddii markaa yani la nasbiyo waxay noqonaysaa in la qadaro faacilkii oo marka wax ii diiday ma jiro haddii hadda ilaa khashyatu la yidhaahdana iima diidin ilaa inaan ka baqahayo ma ahane inaanan uquminin oo waxa weeye xaqeedii aanan kasoo bixin suuratulbaqara ee waan baran kara faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiisu wuxuu yidhi tacallamu lqur'aana qur-aanka barta waxyaalaha la ogolay waxaa kamid ah qur-aanka yani ma baranahayo waxaan ka baqahayo haddaanan baran inay xaqiisa aanan kasoo bixin cilmiga baran mahayo waxaan ka baqa inaa taa lama ogola hadda ka hor xadiid abu hurayra ayuu ahaayo qof saas oo kale a marka yidhi ayaan filaya abu hurayra laftiisana ninka ku yidhi wuxuu yidhi inaan dayacan ka baqayo hadduu yidhi dayac waxaa kugu filan bu inaad iska dayso waaka lafsigeedi baa dayacaan marka ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi tacallamu lqur'aana qur-aanka barta faqra'uuhu qur-aanka aqriya wa aqri'uuhu qur-aanka aqrisiya dadka bara fa ina mathala alqur'aani liman tacallamahu faqara'ahu waqaama bihi kamathali jiraabin maxshuwin miskan yafuuxu biriixi kullu makaani nabigu marka qofka qur-aanka yani barta ayuu wuxuu u sameeyey ee markaa akriya nabigu wuxuu qur-aanka tilmaamtiisii haddii loo eego qofka qur-aanka bartay akrinaya qur-aanka ee qur-aanka uqumaayo xaqiisa kasoo baxaayo wuxuu marka yani la mid yahay kolay tilmaamtiisi oo kale ayuu la mid yahay laga buuxiyey miski kolay miski laga buuxiyey ee markaa udugiisi meel walba yafuuxu biriixi kullu makaan ee markaa waxa weeye urkiisi meel walba ay la udgayso waaka udgoonkiisi dhul walba uu la arfahayo wa mathalu man tacallamahu qofkii qur-aanka yani barta tilmaamtiisi oo fa yarqudu seexanahaya wa huwa fii jawfihi asagoo daakilkiisa ku sugan ila markaa hore hadda waqaama bihi uqumahaya umidda laftigeeda waxaa kamid ah inuu mathalan ama ku tahajudo ama habeenkii salaada ku tukado ama habeenkii laftigiisaba akriya ha noqoto hataa hadduu qofku maalintii laftigeeda akrisa ku dadaalo waa laga helay wixii la doonayo ee markaa iska seexanahaya isagoo daakilkiisa ku jiro aan habeen akrinayn ama maalinba xataa aan akrinayn habeenka laftigiisu qeyd maaha kamathali jiraabin wuxuu la mid yahay kolay tilmaamtiisa oo kale wuu ka aclaa miski lagu xiray kolay inta miskigii carafta badnaa laga buuxiyey marka lagu xiray waxba laga faa'idaysana wax carfoon buu xambaarsan yahay laakiin waxa laga faa'iidaya kaa maaha ko kii hore laakiin isaga waxaa lagu shabahay kolay miski laga buuxiyo laakiin kolaygaasi muxuu ahaa kolay furan buu ahaa udugiisa uu soo gudbayo kan marka wuxuu la mid yahay kolay miski yani waxa weye laga buuxiya laakiin xiran oo markaa wax kasoo carfaya aanay jirin marka barwaaq buu xambaarsan yahay laakiin barwaaqadii akrin mahayo waa kaasna waxa weye faa'iidada qur-aanka meheri marka qur-aanka marka waxaa la rabaa in la akriyo oo weliba guryaha laftigiisa lagu akriyo tirmidi abi hurayra wuxuu ka wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu inuu yihi laa tajcaluu buyuutakum maqaabira guryihiina ha ka dhiginina xabaalo wa ina albayt aladi tuqra'u fiihi lbaqara beytka suuratulbaqara lagu akrinahayo laa yadkuluhu shaydaanu shaydaanku ma soo galo marka guryihiina xabaalaha ka dhigin waxaa looga jeeda xabaasha haddii la eego waa meel cidlaaya cidima askunto oo hadda wax qur-aan akrinahaya qof un iska socdo markaa yimaado maahan laakiin meel la degan yahay ma ah marka gurigiini oo kale xabaal oo kale ha ka dhiganine meel yani cidla ah oo kale mar haddiinan qur-aanka yani akrinayn hadda gurigiina markaa waa guri kharaaba wey meelaan la deganayn oo kale u lamid yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka yani qur-aanka aan baranin mathal baa nabigu u yeela maah yani aan fiicnayn baa nabigu u yeela oo xadiid tirmidi ibnu cabaas uu ka wariyey xadiidkaa waxaa kaloo wariyey imaamu axmed iyo daarimina waa wariyeen ayaa abu cabdullahi ibnu cabaas
وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول جسوه يري إن الذي ليس في جوفي شيء من القرآن كالبيت الخريب متك يعني الداخل كيسة قلبي كيسة أنا كجري من شيء أو قرآن كمدي ولا مدي أقول خراب وكله قولي برمصان ودبي كاسو كله مدي هاي قف كاسي حق بعض إنك أيوك الدنسية هاي قف عن وحوي قرآن كأن هوية لا تحلك أقومي قرآن كمركة وحال الرباء قف يعني مركة أو برتو إلا برتال الدور هي هذه مركة قرآن كأد برتو قرآن كمركة إنات إلى لسان الرباء وهتقول أنا سوانا الأخرساء هذه كلا مركة وهالمعنى مركة وين نسكجي قف قرآن كأنه هالمعنى هذه مركة يعني وهالمعنى وعيد با مركة أيضا كسؤال وهول أن فعلنا ودم بأهوي تاد قرآن كبرتين هالمعنى مركة إلى لسكيسة مركة النبي وكون رمى حديث مسلم البخاري ابن عمر كوريين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحيري أصغوا ما يعني أصمينا هي تصالة أصغوا تصالة أصمينا هي نبي تصالة وحسبيه قفك يعني القرآن كي يقانه نبي وحي إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت قفك يعني القرآن كي يقانه في المام تسوح اللمتة كمثل صاحب الإبل المعلق قيل يعني للضبري قفك يعني إسكاله أو جيلاس إسكاله أو كلو لمدي إن عاهد عليها جيلاس يعني أو ضبري حضو الإلالي وكور قبه أمسكها مركب وهاي سنة يا معناه وحوي استمر إمساكه الهاوي نفي خفي كرمهاي وإلى طلقها دوسي دائرة ذهبت وأتجيسة معناها لو جيت مثلا جيل مركب ورثه أو كلا دورت هذا المركب أنت ضبر رادكته aan dib ugu soo noqon waxa laga yaabaa dabarkii inuu goosto oo markaa uu tago laakiin waa dabartay hadda marka waa soo kormeeraysaa bal waa fiirinaysaa xoolihii marka meeshii inay ku joogaan oo kale hadda xoolahaasi marka ka fikir mahaya hadii laakiin faraha aad ka qaado inuu taga imaanaysa dabarka inta goosto inuu dhaqaaqo ama dooraba dabarku inta la boodboodu waxa way meel aan mareenin buu ku dhacaya oo kale marka qofka quraanka barta waa nooca oo kale haduu quraanka uu san ka warqabin oo hadba inuu akhriyo ee faraha uu ka qaado marka hore xafido uu yiraahdo hadhow quraanka marka uu halmaamayo sidoo kale nabigu xadiis wuxuu ku yiri muslim ee bukhari abu musa al-ash'ari ka wariyeen ayaa nabigu wuxuu yiri ta'ahadul qur'ana fawalladhi nafsi biyadi lahu ashadu tafasiyan min al-ibil fi uqulha nabigu wuxuu yiri quraanka ilaaliyo yiri waxaan ku dhaaranayaa ilaaha naftaydu jadiisa ay ku sugan tahay quraanku yaani wuu ka dareeyahay حاجة في كشادة هذه اللي جيرة الدبر كيسة كسوغان جيرة الدبران في كشادة ووجد ليه النبي عليه الصلاة والسلام الإلالية قرآن مركا واحد تقول الإله الإسلام هنا الهضبة يعني دورة وي قرآن كدورة هنا دي يعني مثلا أخرسان سلاك دورة وهكذا حديث كذا كسوغان أيضا قرآن كهالمام كيسة يعني اللي دي قفك إنه خصوصيانا لقدر برهاي بخاري يا مسلم يا ترمذي عبد الله بن مسعود وهي قولي النبي عليه الصلاة والسلام إنه يريد بئس ما لأحدهم أن يقول النسيت آية كيت وكيت بل هو النصية استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم وحا النبي عليه الصلاة والسلام وحا حمب النبي وحا متكود أصونا عليه أوامحي إنه يريد هذا آيات هبلة بان حلمان بل هو النصية ولا حلمامسي أنا النبي ورك أوجه جيدا قفكم مركو لي أنا حلمان وان حلمان أو كلي نفسي سووا تيرنا هذا الكلام معني سوحة آية تعاضيت أسبابا النسيان أنا جا إسيسيو سمية صباح عن قرآن كي كهالمان بل النبي قال له المامسي لهذا أرمتها كهالله هي هذا أنصيت آية كذا وكذا آيات هبلة هذا اللي هالمامسي marka warka ujeedadiisu waxa weeye qofku yuusan sameeynin asbaabaha yaani ku keeni kara quraanka inuu halmaamo oo marka ay ka dhalan karto sigada ah quraankii waa halmaamo oo kale laakiin xalkiisu waa inuu noqdo haduu quraanka halmaamo asagoo dadaalaya halmaam sababkiisa ah la ku dhaca oo qofku asoo akhrinaayo waa dhici kartaa inuu aayaadka qaarkood kor inuu ka sheego oo halmaamo waa dhici kartaa mesela inay ku timaado jirro oo kale iyo quraankii laftigiisa halmaamsiisa waxyaalo cudurra واي مركا تعبير كيسنا وحن نقولها ينو يلاهو أنصيتها ولا الممسية وكذا استذكروا القرآن قرآن كإس خصوصية أو خصوصية هي وأنه هذه يجي القرآن كأخريه
kor laftigiisa ka akriya hadduu hor ka bartay istijaabiya hadba falahuwa ashaddu tafasiyan min suduuri rijaali min annaar waa ka daran yahay buu nebigu yidhi fikashada ragga laabtooda laga fikado dumarkuna lamid way ciddii xifdisan xoolaha waa ka daraya fikadka xoolaha waa ka daraya waa siiba geela ugu fikasho badan sida hadda riwaayadka hore ay soo qaaday marka qur-aanka in la halmaamo waa la isaga digay axaadiista qaarkooda dambi weynan badan ayay ku tilmaamahayaan oo xadiid waxaa ku sugnaa abu daawud iyo tirmidi ay wariyeen walow tirmidi xadiidka uu ku hadlay anas ibnu malik yani ay ka wariyeen anas inuu yidhi ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaa wuxuu yidhi uridat calaya ujuuru ummatii ummadayda ajarkooda waa la ii bandhigay xata alqadaatu yukhrijuha arajulu min almasjid wax kala iska dhaafe masalan qori qofku masaajidka uu ka dhex saarahaya ba allah ka dhigay qoryaha yararkaa waxaa wey shaahidkii yani inaad ka nadiifiso kalaba allah ka dhigay wa uridat calaya dunuubu ummatii ummadayda dembiyadeeda waa la ii bandhigay falam ara danban acdama min suuratin min alqur'aani uutiyahaa rajulun huma nasiya min suuratin min alqur'aani aw aayatin uutiyahaa rajulun huma nasiya waxaa la ii bandhigay baa nebigu yidhi ummadayda dembiyaasheedii baa la ii bandhigay marka ma aanan arag baa nebigu yidhi dembi ka weyn suurad oo qur-aanka ka mid a ama aayad oo qur-aan ka mid a oo qof inta la siiyey markaa kabacdi u halmaamay abu daawud iyo daarimi waxay wariyeen oo sacd ibnu cubaada waxay ka wariyeen radia allahu canhu nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi man qara'a alqur'aana huma nasiyahu laqiya allaha caza wajalla yawma alqiyaamati wahuwa ajdab qofkii qur-aanka inta akriya halmaama oo qur-aankii buu bartay ilaahay maalinta qiyaama ayuu la kulmahayaa wahuwa ajdam isagoo ajdam ah oo ama gacantiisu go-antahay ha noqoto ama looga jeeda isagoo majuudaan qabo sida majduumanba yani riwaayad qaarkood ba ay ku yimaadeen macnahaas marka culummadu way ka hadleen oo xaafidka ibnu xajar asqalaani la yidhaahdo yani wuu ka hadlay nisyaanka yani qur-aanka xukunkiisa waxa uu yahay wuxuu marka fatlbaariga ku yidhi wakhtalafa asalafu fi nisyaani lqur'aan culimmadii horeyse waxay isu khilaafeen qur-aanka yani halmaamkiisi inuu dembi kabiiraha inuu yahay in kale fa minhum waxaa kamida man jacala dalika min alkabaa'ir qola yani arrintaas ka yeeshay dembiyada waaweyn inuu kamid yahay wa akhraja abu cubayd min dariiqi daxaak ibnu muzaahim mawquufan abu cubayd wuxuu soo saaray muxadidka la yidhaahdaa mufasirna waa u ahaaye oo dariiqa yani daxaak yani wuxuu ka dhankaas ninkaa xaggiisa wuxuu ka wariyay daxaak ibnu muzaahim la yidhaahdo ayadoo xadiidkaas warkaa daxaak laga warinayaana mawquuf uu yaho asaga hadalkiisi uu yahay salafkaasuuna kamid ahaa oo dadkii hore kolleyba taabiciintii buu kamid ahaa daxaak qaala wuxuu yidhi ma min axadin tacallama alqur'aana huma nasiyahu ilaa bidanbin axdathahu ma jiruu yidhi qof qur-aanka inta bartay markaa kabacdi qur-aanka halmaamay ilaa taasi waxay ugu dhacday dembi qofkaasi uu soo darisiiyey oo qur-aanka markuu bartay kabacdi gadaal uu kala yimi liana allaha tacaala yaqulu wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum hadda sidaa waxay u tahay aayaddaanu daliilsada baxaad ilaahay wuxuu odhanayaa wixii adinka idin asiiba oo musiibo ah waa wax adinka gacmihiinu marka ay shaqaysteen wey wixii musiibo ah adinka idinku dhacay waa wax adinka gacmihiinu ay shaqaysteen wa nisyaanu lqur'aani min acdami lmasaa'ib qur-aanka oo la halmaamaana masiibooyinka kuwa ugu weynanka badan kaas ayuu kamid yahay waxtajuu shiiku waxay xujaysteen qolooyinkaa u arkay qur-aanka in la halmaama inay kabiiro tahay aydan noqoshee bima akhrajahu abu daawud watirmidiyu abu daawud iyo tirmidi waxay soo saareen oo min xadiidi anasin marfuucan xadiidkii anas ayagoo nabiga loo kor yeelay xadiidkii hadda aan soo sheegnay qaybtiisa dambe macnahan kusaysa soo qaado oo ahaa uridat calaya dunuubu ummatii ummadayda dembiyaasheedaa la iisoo bandhigay falam ara ma ana arag damban acdamu min suuratin min alqur'aani uutiyaha rajulun huma nasiya dembi ka weyna badan suuradda oo qur-aan ka mid ah oo qof la siiyey nin baa lasoo qaada dumarkii waa lamid ee markaa kabacdi u halmaamay fii isnaadihi ducfun sheikhu yidhi xadiidkaa sanadkiisa daciifnimaa ku sugan markii sidaas oo kale la yidhaha waxa wey xadiidku daciif waaya laakin waa daciif aan darayn waqad akhraja ibnu abi daawud ibnu abi daawud wuxuu soo saaray buu yidhi min wajhin aakhara dariiq kale mursalin oo haddana mursal oo la diro saxaabigii wariye aan la sheegin naxwahu xadiidkan oo kale kasoo saaray wa lafduhu dariiqa lafdigiisu marka wuxuu aha xadiidkaa uu soo saaray acdama yani wuxuu ahaa acdama min xaamili lqur'aani wa taariki
ما جرى ذنب كوينا بدن ذنب يدان كوارك أو كوينا بدن قف قرآن كي امتحان بارك التجي واك ومن طريق أبي العالية وهو هدنا ويعني ابن أبي داود وكسو صار أبي العالية نكلي تابعين تكمل طريق اسم موقوفا سوى هذا الكاسوي هذا الأسئلة الوجوجي أسئلة وركيسة ومركا منك أو كهلا هي بكي سلف كتابعين تي صحابة أيوه كنا نعد من عدم الذنوب من عدم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه وإسناده جيد منك أبي العالية اللي هذا وحويري waxaanu ku tirin jiray dadka yagi salafka ee waxa way taabiciinta iyo saxaabada dunuubta kan ugu waaweyn inuu kamid yahay qofku inuu quraanka barto ka seexdo faru ka qaado waak hatta yansaahu ila quraanka uu ka halmaa marka khabarkan hadda asarka sanadkiisu waa jayid weyn maad sanad wanaagsan way ومن طريق ابن سيرين ابن ابي داود ابن سيرين jidkiisa wuxuu dhankaas wuxuu ka wariyay sanadka xaga sanad ibn سيرين galahaya بإسناد صحيح سند صحيح وحكوري في الذي هو أول هذا وحوي ابن سيرين أوليه تابعينته كم لها مركه وقوري في الذي ينسى القرآن متك يعني القرآن كهل ما معي كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا ابن سيرين وأصونا تابعينته كم رجع أصحاب سوقاره أيها السلف كي أسوقاره أما تابعها النقطة أما أصحاب النقطة قال لا يقول ليه ويكهن جيرين بولا مثل القرآن كان تبر سهل معه ويقولون فيه قولا شديد ننكا شأنك سيحال كي سنة هذا الضرم بيكورن جيرين وا هذا الأرق وإنك كتل مام جيرين وا سيدوك أبو داود وحوريه بولا سعد بن عبادة وحديث كده بان صوشيغني حديث مرفوعة وهو حوي النبي أوليه من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدم ننكي القرآن كأخرياء صغوها المامي markaa ka bacdina halmaama qofkii quraanka akhriya markaa ka bacdi halmaama ilaahay buu la kulmayo wuxuu ajdab asagoo yaani gacan go'an sidaas oo kala macna waxa way barakalaan buu ilaahay kula kulmayo sujuudan qabaha wa fi isnaadihi aydan maqal hadith kan laftigiisa asaga sanadkiisana hadal baa ku jiray macna asaga wuxuu ishaaraya mar hadii fi isnaadihi maqal la yiraahdo ducfi baa asagana ku jira aan daray وقد قال به من الشافعية أبو المكارم الروياني سيدان هذا علماء قاب كودو كسور نقليه أو قرآن كإن لها الماما إني كبيرتها شافعية لوحا قبويري نينك اللي لها أبو المكارم الروياني كل يدي أبو المكارم اللي لها واحتج وحو حجيستي بوير الروياني بأن الإعراض عن التلاوة أغرنت قرآن كاللي جيستا يتسبب عنه وحا كدالنا يعني وحاويه نسيا إعراض كا كدالنا نسيان القرآن كهالمامد سباك الله ونسيان القرآن كالله المامانة يدل وحتصرها على عدم الاعتراء به قرآن كالله قصد الله آبي للوايو يوتهون بأمره قرآن كأرنتي سشاني صلى الله عليه وسلم ساسي مركب وحاوي كبير أوت وقال القرطبي وحير من حفظ القرآن قف قرآن كحفظية كركب برثة ومصر بعض وقاركيس فقد علت رتبته قف كدرجة ديسي ويسر مرثة بالنسبة إلى من لم يحفظه وفي قرآن يعني عن حفظنا هذه الله يابو فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية درجة أو دين تكسافسا هذه قفك يعني أو حلمه حتى تزعزح عنها إلى درجة أو كفقاده ناسا ومركا وحا هبونا هي أن يعاقب على ذلك أهلتها إن لغو عقابه ومركا أحاديث كسو أروري أيو أسونا سيدان كصحي كأنصحنا يا هذا الكان أيو كحي فإن ترك معاهدة القرآن قرآنك الله دور لأيغو كاس لغتغا يفضي وحو غارسينها إلى الرجوع إلى الجهل جاهل نبا اتكا الله نقضى أقول الآن والرجوع إلى الجهل أقول الآن الله نقضانا بعد العلم مركا أخبرتك بعد إلا قرآنك وعلمه هذا رسم معني سلاها أقوله علمي بعض مرته شديد متكي درنوي وقال إسحاق بن الراهوية وحو يريبه تابعينته كمدها إمام أحمد فقي أصحاب السهب كجري وحو يري يكره للرجل نينك وحا الله كهانيا وقفك يعني كلاهيا أن يمر عليه 40 يوما أفرسا مع الموضوعين الصومران والله يقرأ فيها القرآن كأنه أخرين ثم ذكر مركا وحو شيغا وركا مركو سوق على إسحاق بن الراهوي حديث عبد الله بن ابن مسعود ومحوها بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت وكي هذا أنسو مرين شيخ مركا وحو ابن حجر
waxaa la isu khilaafa macnaha ajdamka waxa looga jeedo qola waxay yidhaha waa maqduuciyad isagoo gacantiisu ay go-an tahay ko waxay yidhaha waa maqduuculxuja isagoo ilahay agtiisa xujo uu la tagaa xujadiisu ay go-an tahay ko waxay yidhaha maqduucu sababi min alkhayr macnaha sababkii yani asbaabihii khayrka isagoo ka go-an ayuu qiyaamo marka imaanahay waxaa lagu fasiray ajdamka oo kale khaalil yadi min alkhayr isagoo gacantiisu khayr ay ka maranta macnahaasoo dhan way isku dhow yihiin waqiila yuxsharu majduuman xaqiiqa waxaa kaloo la yidhi isagoo yani juudaam qaba oo dhab ahaan cudurkaas qaba ayaa qiyaamo lasoo shirinaya wayu-ayidu sidaa lagu fasirana waxaa quweynaya ana fi riwaayati zaa'idata ibnu qudama cinda cabdi ibni xumayd riwaayada ninka la yidhaha zaaida ibnu qudama ee markaa yani uu warinahayo muxadidka cabdi ibnu xumayd la yidhaha riwaayadaasa waxaa kusugnaa ata allaha yawma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaahay buu imaanahaya wahuwa majduumun isagoo juudaam qaba marka sidaa daraaddeed qofka yaraantii inta xafida halmaama waxaa haboon hadda dib ha ugu noqdo haddii bilaa cudur la-aan marka uu ku halmaamay markaa hadda in yar hadduu hadda maalintii dhowr aayadood barso waxa weye sidaa u wado xifdigii marka wuu soo celin karaa tartiibta ha ku soo celiyo uma si kale ku awoodi kara waxyaalaha marka waxaa ku saabsan qur-aanka markii la eego jawaanibtiisa ayaanu kasoo hadlaynay